السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بني السلام يا ولد مسلم كمان توحينو سفي عنا نوضة دقيسن وندقن دونا موضوع قيم بدن موضوع الصعوان كيسوي وحتى تكسي بعد مده موضوع إنه حقوق بالعملية خصوص الشرط تقتضي إياك فكر كده ووقت المس يبان كانوا waxaan dilaysaa rabitaankaaga adigoo ku tumanaya taagantaada faylasha wixii tagay dadka garaadka badani way dadafeeyaan oo ma dawariyaan waxayna iskaga dhigtaan xarko adag isla markaana waxay ku hilmaamaan xabsiyada ilowga waligoodna kama soo saaraan murugadu ma soo celiso wixii tagay wehilowguna ma hagaajiyo kadaba gocleyntu ma noolayso sababtoo ah maba soo noqonayaan si kastoo ah utabayso ha ku noolaan u qarowga tagtadii ka badbaadi naftaada riyooyinkii xumaa ee tagay haddii aadan ka badbaadinayn waxaad doonaysaa inaad webiga u weeciso halkii uu ka soo burqaday qorraxdana aad ku celiso halkii ay ka soo baxday ilmaha yarse ma ku celin kartaa uurkii hooyadii ilmadana ishii ay ka soo burqatay lafagurka tagtadii ka warwarkeeda ugu dahayoodkeeda iyo isku canaanashadeedu waa xaalad xun oo argagax iyo aan fariir leh mana habboona akhrinta xusuusashada iyo xugsida wixii tagay waa luminta waxa taagan alla waxa uu xusay ummado iyo falalkoodii waxaanu yidhi tilkan ummadu qad khalat oo macnaheedu yahay kuwaasi waa ummado tagay oo arrinkaasi waa dhammaaday ama habka ama baabkaas waa la xidhay muhiim maaha kafaaloodka iyo soo celinta wixii tagay sababtoo maba soo noqonayaan qofka ka fakara wixii tagay ama wax waa hore la dhaafay waa sidii qof haruur tuman oo la hufay baalkiina laga haadiyey raba inuu dib u tumo hore ayay Soomaali u tiri wax tagay tigsimaad ma leh dhibteenu waxaa weeyaan inaynu ka caajisnay isla markaana hilmaamnay waxa maanta taagan kuna mashquulnay wixii tagay haddii jinni insi isu tagaan iskuma dayaan inay soo celiyaan hal ilbiriqsi ma soo celin karaan cid awooda ma jirto la weyne mooyaane gadaal ha eegin dibna ha u jilleecin sababtoo ah dabayshu waxay u babataa xagga hore biyuhu waxay u qulqulaan xagga hore kabadhuhu waxa u socdaa xagga hore ee ha ka hor iman hanaanka nolosha dad baadsantiin mawduucanuna intaasuu inooga muhiimkuna waxaa weeye inaynaan ku noolaan xasuusaha wixii tagay aynu ka fakarno waxa maanta taagan daynu mawduucan mawduucna midoono waxaad kaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo